$7 ee hub lagu iibiyo adduunka oo dhan mid ka mid ah waxa iskale Sacuudiga. Sacuudiga waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay dawladaha ugu waaweyn ee iibsada hubka caalamka tiro iyo tayo ahaanba. safarka dheer ee hubgadashada Sacuudiga ayaa ku bilowday hub Maraykanku leeyahay laga soo bilaabo sanadkii 1974 kadibna waxaa xigay hub Ingiriisku leeyahay oo ku yimid waxa loo yaqaan heshiiskii Yamama kaas oo lagu tiriyo inuu yahay heshiiskii hubka ee ugu musuqmaasuqa weynaa taariikhda Ingiriiska. لأن صفقة أسلحة اليمامة بين maxaa yeelay heshiiskii hubka ee Yamama ee u dhaxeeyay Ingiriiska iyo Sacuudiga waxaa loo arkaa inuu yahay heshiiskii ugu komishinka ama mushqaayada badnaa taariikhda ka ganacsiga ee hubka UK. waa heshiis ku dhisan kala gadashada tiro xadidan oo ka mid ah diyaaradaha dagaalka oo ah 72 diyaaradood. haddaba waxa aad qayb tiro yar ku iibsatay qiimo aad u sareeya. go'aanka kala gadashada aad ayaa loo qariyay maxaa yeelay waxa uu ku saabsanaa nabadgelyada qaranka. celceliska hubgadashada Sacuudigu waxa uu u korayay qaab aad u sareeya 80 ilaa 90 intii lagu guda jiray wixii loo yiqiin tartanka ishubaynta ee dawladaha Khaliijka kaas oo daba socday guushii kacdoonka Islaamiga ah ee Iiraan sanadkii 1979 kadibna waxa xigay duulaankii Ciraaq ee Kuwait sanadkii 1990. الصفقات السعودية في ميزان الاقتصاد. heshiisyada hubka ayaa culays dhaqaale oo aad u badan waxa ay saareen miisaaniyadda Sacuudiga laga soo bilaabo bartamaha 80-yadii iyada oo qiimaha shidaalka hoos u dhacayay ayay boqortooyadu sii waday inay dhaqaale badan ku bixiso hubgadashada kaas oo gaaray 8% wax soo saarka guud ee gudaha waddanka intii u dhaxaysay sanadihii 1987 ilaa 1997 waxa ay ahayd fadhiidnimo miisaaniyadeed oo wajahaysa maalgelin aad u ballaaran oo dhinaca militariga ah. waxa uu ahaa isu dhigan aan ku koobnayn oo keli ah tagtada dhow laga soo bilaabo sanadkii 2014 ilaa maanta. Sacuudigu waxa uu diiwaan geliyaa fadhiidnimo miisaaniyadeed oo sanadla ah. waa fadhiidnimo miisaaniyadeed oo aan lahayn marnaba hoos u dhigidda miisaaniyadda gaashaandhigga. taas beddelkeedana waxa ay qaaday boqortooyadu wax si walba uga duwan xal u helidda fadhiidka miisaaniyadda. xilligii Obama Sacuudigu waxa uu soo dhoofsaday agabkii ugu tirada badnaa ee ishubaynta ee Sacuudiga 94 bilyan oo dollar ayaa ku kacday ishubaynta boqortooyada intii u dhaxaysay 2008 ilaa 2015. sidaasna waxaa shaaciyey adeegga cilmi baarista ee aqalka odayaasha ee Maraykanka sanadkii 2016. waa heshiisyo balaayiin dollar ku kacay kana yimid meel walba laga bilaabo Maraykanka, UK, Canada, Talyaaniga, Russia, Shiinaha iyo xitaa Faransiiska, Sweden, Belgiumka, Norway, Turkiga, Switzerland, Spain, Jarmalka, Serbia, Koonfur Afrika, Greega iyo xitaa Georgia. waa hanti ciidda ka badan oo ay boqortooyadu ku bixinaysay 10 sano hub aad u horumarsan si isugeynta hubkaasi u samayso difaaca hubka ugu halista badan adduunka. Sacuudigu waxa uu leeyahay diyaaradaha ugu casrisan dunida laga bilaabo diyaaradda Typhoon oo UK soo saarto iyo F-15 oo Maraykanku leeyahay. waxa kale oo Sacuudigu haystaa taangiyada iyo gaadiidka gaashaaman ee ugu xoogga badan kuwaas oo leh difaac aad u adag. dhinaca badda biyaha Sacuudiga waxaa ku jira dhowr doomood iyo maraakiibta dagaalka. boqortooyadu waxa ay haysataa bambooyinka wax burburiya. dhulka Sacuudiga waxaa ku yaal hanaanka ugu horumarsan ee difaaca cirka ee Patriot. waxa ayna boqortooyadu isu diyaarinaysaa inay keensato hanaanka difaaca ee THAAD ee Maraykanka. waa difaac aad u adag una ballaaran oo kugu qaadaya inaad rumaysato in Sacuudigu leeyahay ciidanka ugu xoogga badan adduunka. ha yeeshee dhab ahaan marka laga hadlayo dhinaca awoodda caalamka Sacuudigu waxa uu ku jiraa kaalinta 26aad. Iiraan ayaa ka horraysa oo ku jirta kaalinta 13aad. waxaa suuragal ah in lambarada muuqda ee loo jeedo aanay noqon kuwa ku filan inay muujiyaan xaqiiqda. sidaas awgeed noo oggolaada inaan aragno waxa uu Sacuudigu yeeli doono marka uu galo dagaal dhab ah. I wanted to meet with you to inform you that the Kingdom of Saudi Arabia launched military operations in Yemen. waqtigu waa 2005 goobtuna waa Sacuudiga. dhacdaduna waa dagaalka duufaanta. waa dagaalkii oo muhiimadiisa yaraystay wasiirkii gaashaandhigga ee xilligaas Maxamed bin Salmaan. waxa uu dagaalkaasi ka dhignaa imtixaankii ugu horreeyay ee dhabta ahaa ee ay gashay awoodda Sacuudigu.
ha yeeshee 4 sano oo hardan ah kadib dagaalkii ma joogsan sacuudiguna midna kama xaqiijin ujeeddooyinkiisii uu ka lahaa dagaalka yemen waqtigu waa uu nala jiraa qandhadayska dheerna waa danteenna إذا نظرنا إلى أهداف السعودية من الحرب في اليمن حماية الحدود الجنوبية haddaan fiirino danaha sacuudiga ee dagaalka yemen waxaa ka mid ahaa ilaalinta xuduudaha koofureed iyo in sacuudiga laga ilaaliyo duulaanka iyo soo celinta xukuumaddii haadi iyo in meesha laga saaro fulinta awoodeed ee iiraan dhammaan afartaas arrimood waxa aan dhihi karnaa sacuudiga wuxuu ku sii fogaynayaa xaqiijintooda sidii uu uga fogaa markii dagaalku bilowday haddii uusanba kaga sii fogayn لا يوجد استراتيجية في القتال في اليمن ma jirto marnaba istiraatiijiyad dagaal oo ku wajahan yemen خسائر السعودية بالأرقام 2400 oo askari iyo 60 sargaal ayaa ku dhintay waxaana ku burburay 650 taangi si looga hortago hal gantaal oo balastig ah waxa ay u baahan tahay boqortooyadu 3 gantaal oo ah nuuca Patriot ee Mareykanka halkii gantaal ee nuuca Patriot ahna waxa uu ku kacayaa 3 milyan oo dollar tirada gantaalaha ay xuuthiyiintu ku hogaamiyeen sacuudiga sanadkii 2018 waxaa lagu qiyaasaa ugu yaraan 100 gantaal taasoo ka dhigan in boqortooyadu ku bixisay 700 oo milyan oo keli ah ka hortegidda gantaalaha balastiga sidaas oo ay tahayna tiro ka mida gantaalahaas lagama hortegin 72 bilyan oo dollar ayay ku bixisaa dowladda sacuudigu sanad walba oo keliya dagaalka yemen taas oo sababtay hoos u dhaca kaydka dowladda ee lacagta shisheeye waxa uu gaaray 487 bilyan sanadkii 2017 halkii uu ka ahaa 737 bilyan oo dollar sanadkii 2014 waa khasaaraha balaayiin dollar oo ku qasbaysa sacuudiga inuu amaah ka soo qaato hay-adaha lacagta waxa kale oo ay ku qaadaysaa boqortooyada inay kordhiso qiimaha ayna canshuur ku soo rogto dhammaan dadka soo booqda aakhirkana waxa ay natiijadu noqon doontaa in ku qarash garaynta dhinaca hubka 3 meelood meel wax soo saarka guud ee boqortooyadu uusan u xaqiijin sacuudiga wax guul ah horumarka ugu weyn ee 4 sano la gaarayna waxa uu ahaa mid ku kooban hal wax oo keli ah صفقات السلاح المليارية ضريبة السلاح من يدفع الثمن celceliska fadhiidnimada dhaqaalaha iyo kordhinta maalgelinta milatarigu waa sii socon doonaan sacuudigu waxa uu ku bixiyey iibsashada hubka lacag dhan 9 bilyan oo dollar laga soo bilaabo markii uu qarxay dagaalka duufaantu waa tiro aad u weyn oo wajahaysa fadhiidka miisaaniyadda guud oo ka sii weyn kaas oo gaaray 98 bilyan oo dollar marka la fiiriyo wax soo saarka guud ee gudaha waddanka sacuudigu waa dalka labaad ee ugu weyn ee dhaqaalaha ugu badan ku bixiya milatariga qiyaas gaartay 10.3 boqolkiiba waa qarash garayn gaartay ilaa dhammaadka sanadkii 2017 qiyaastii 224 bilyan oo riyaal waxa ay gaartay 210 bilyan oo riyaal sanadkii 2018 waa xisaab aad u ballaaran oo lagu bixiyey hub reer galbeed kaas oo ay iibsanayso dawlad carbeed si ay ugu adeegsato dawlad kale oo carbeed دولة عربية لتستخدمه في دولة عربية أخرى Yemen is the world's worst humanitarian crisis. yemen waxaa ka taagan xaaladii ugu xumeed ee bini'aadanimo ee adduunka soo maray dad ka badan 22 milyan ama 3 meelood meel dadka yemen ayaa u baahan kaalmo bini'aadanimo iyo gabaad ha yeeshee dhibaatadu ma gaarin yemeniyiinta oo keli ah dadka u dhashay sacuudigu waxa ay qabaan dhibaato nuuc kale ah sida uu daabacay websayte-ka Forbes ee Mareykanka sacuudiga ayaa markii ugu horreysay waxa uu u leexiyey qaybta ugu weyn ee dhaqaalihiisa gaarka ah dhinaca qarash garaynta ciidanka iyada oo lacagtaas laga soo jaray qaybaha kale ee wax ku oolka ah sida waxbarashada iyo caafimaadka sanadkii 2018 لدينا إشكال في قطاع الصحة وإشكال كبير جدا كثير من المرضى يتجه للمستشفى gudaha sacuudiga arrin aad u murugsan ama aan la fahmi karin ayaa naga haysata dhinaca adeega caafimaadka in badan oo ka mid ah bukaanka waxa ay taagan yihiin isbitaalka iyagoo dhibaato caafimaad qaba waxaa laga yaabaa in uu nolosha waayo sababtuna waxa ay noqon kartaa in aan la heli karin sariir lagula tacaalo xaalkiisa maalmaha saboolnimada waxa ay dhaaftay sacuudiga 23 boqolkiiba ama waxa aan ku sii dhownahay inaan noqonno 4 meelood meel dadka degan waddanka aadka qaniga u ah balse ka hooseeya xariiqa saboolnimada kadib markii ay xumaatay xaaladda xuquuqda aadanaha ee sacuudiga ayna boqortooyadu sii waday dagaalka ay kula jirto yemen
dhowr dawlad ayaa shaaciyey inay joojiyeen hubkii ay ka iibin jireen sacuudiga sweden ayaa ugu horraysay dawladahaas laga soo bilaabo sannadkii 2015 waxaana ku xigay jarmalka biljamka iyo norway sannadkii 2018 ha yeeshee arrintaasi wax weyn kama beddelayso xaalka iyo celceliska guud dagaalka yemen waa socdaa weli suuqii hubkala gadashaduna waa kobcay waa baahi iyo bandhig sidaas ayay u arkaan trump iyo dawlado kale oo badan waa suuq madow oo ku shubaya balaayiin dollar jeebabka waddammada farsameeya hubka fadhiidnimada dhaqaalahana ku sii badinaya ama ku sii kordhinaya kaydka kuwa iibsada hubkaas mana hayo hubkaasi waxaan ahayn burburin I would not be in favor of stopping a country from spending 110 ma taageerayo axsaanna uma samayn maayo in waddan loo diido inuu 110 bilyan oo dollar uu ku bixiyo heshiisyo hub iyo military iyadoo aan la diiwaangelin wax u dhigma lambarkaas xoolahaas uguma tegayo in raashka ama jaynaha midkood uu qaato taariikhda ayaa la moodaa inay dib isku soo celinayso Aircraft are very expensive these days, and so you don't want them to have just one row when that one row is advanced. maalmahan diyaaraduhu aad ayay qaali u yihiin sidaas awgeed waa inaadan ciyaarin kaalin qura marka ay kaalinta qura tahay inaad samayso tababar horumarsan diyaaradahani sidoo kale waxa ay ku habboon yihiin inay qaadaan weerar dhulka ah sidaas awgeed aad ayay u fiican yihiin marwo waxa aad u muuqataa in aad tahay wakiil ganacsi oo aad xariif u ah maya waxaan ahay ra'iisul wasaare wax xiriir ah lama lihi wakiil ganacsi $3 billion, $533 million, $525 million. That's peanuts to you. haddaba sacuudiga ayaa iibsanaya waxaana beecinaya dhammaan waxaana la moodaa inay yihiin wakiillo ganacsi intooda badanse waa madax dagaalkuse ma dhammaanayo shidaalka lagu hurinayo waa hantida carabta dhibbanayaasha dagaalkuna waa carab haddii aad ku hadasha afka carabiga si dhammaystiran ayaad u taqaan sida loo sameeyo gunaanadka wanaagsan haddii aad u aragto in muuqaalada noocan oo kale ah aad wax ka faa'iidayso leeg saar si aan u aragno cadadda tirada danaynaysa mahadsanid